wasaaradda isboortiga runtii mandatekeedu ama qorsheedu uu yahay horumarinta isboortiga runtii isla markaasna ay hoosimaadaan xiriirada isboortiga runtii waxaan aaminsanahay qorshihiina loogu idmay loogu talagalay dawladdu ay noo idmatay ahayd inaan horumarinta isboortiga ka shaqeyno isla markaasna horumarinta dhalinyarada aan ka shaqeyno agaasimayaasha waaxyaha iyo wasaaradda inteeda badan diyaar ay u tahay laakiin cilad jirta awgeed wasiirka wasaaradda ugu sareeya ayaa runtii muddo 3 sano ah runtii aan aaminsanahay inaysan wax horumar aysan ka sameyn arrimaha isboortiga taas dhibaatada ugu weyn ee horumarka isboortiga uu la horumari waayay tahay horumarka hadda la gaaray waxa si gaar ah u leh oo mudnaanteeda iska leh xiriirada isboortiga iska leh annaga wax contribution ah oo aan ka geysanay ma jirin qeyr Allah siiray wasaaraha xukuumadda ayaa runtii dhowr jeer arintaas horumariyay asagoo runtii dhagax dhigay garoonka Baydhabo isla markaasna gaalkacyo dhagax dhigay isla markaasna hadda garoonka tulada ciyaaraha aad u jeedaan horumarka ka muuqdo oo maanta dib u soo kabanayso xukuumadda ayaa qayb ka ah wasaaraha ayaa sameeyay wasaaradda la rabay in horumarinta isboortiga wasiirku ugu horeeyay waxay gacan qabatay agaasimayaashii iyo aniga wasiir ku-xigeenka ah waxay noo diiday in horumar dalka aan ka sameeyno isboortiga aan ka sameeyno taasoo ah midaan la aqbali karin wasaaradda isboortigu ma aha wasaarad siyaasad ka shaqeysa waa wasaarad arrimo bulsho oo loogu talagalay horumarinta isboortiga in laga shaqeeyo waxaa la diiday isboortiga in la horumariyo qarashaadkii loogu talagalay isboortiga in lagu horumariyo muddo 3 sano miisaaniyadda ugu afraad hadda baarlamaanka la geenaya $1 looguma talagalin isboortiga qaranka xulka qaranka markuu baxaya xataa tikirada xataa wasaaraddu ma awoodina bixiso horshahaas xukuumadda diyaar ay u tahay laakiin waxa hor istaagay oo fulin waay wasiirka fulin waay sidaas daraadeed waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegay dhalinyarada isboortiga jecel iyo dhalinyarada kalaba in 3 sano ay noqotay wasaaradda waa diyaar dad aqoon yahana waa joogan laakiin barbareemka wasaaradda wuxuu noqday wasiirka ugu sareeya wasaaradda ayadoo runtii sharcigana ka talaabaysa isla markaasna dana siyaasadeed ku mashquulay horumarka isboortigu siyaasad ma aha horumarka dhalinyaraduna siyaasad ma aha sidaas daraadeed waxaan idinku wargelinayaa annaga dhalinyaro ahaan diyaar aan nahay mar walba isboortigu waa socda dadku waa jecel yihiin dhiigooda isboortigu ku shaqeeya horumarku ku shaqeeya laakiin qofkii mudnaa la rabay wasaaradda in la keenay lama keenin sidaas daraadeed madaxda waxaan leeyahay in la idin amaano oo social media laga amaano madaxda ugu horeeyay wasaaraha iyo madaxweynaha la yiraahdo libaax laba ma aha qaranka lagu baabi'iyo oo musuqmaasuq iyo cadaalad darro looga shaqeeyo taas mid aqbali karna ma aha haddii xasaanad xildhibaan wasiir lagu noqday ma aha in isboortiga dhalinyarada lagu baabi'iyo annaga waxaan diyaar u nahay annagoo xildhibaan baan nahay golaha shacabkan ka tirsanahay ma fiirsan karo barbareemka dhalinyaradu haysto ma fiirsan karo horumar la'aanta isboortiga ka jiro waajibaadka laga rabay wasaaradda diyaar baan u nahay laakiin wasiirkii fulin lahaa uu ka mashquulay habeen iyo maalin wasaaradda ma joogo waxaan loogu talagalay in laga shaqeeyo ay ka shaqeysaa sidaas daraadeed ma cishan karna dareenkeennii waxaan diyaar u nahay inaan shacabka u sheegno inaan la marhabaabinin shacabka iyo dhalinyarada madaxdana lagu qaldin xafladaan jirin wasaaraddan qorshaheeda 3 sano ugu dambeysay waxyaabaha ay qabatay waxa kamid ah in xaflad kaliya la qabto oo 15 May maalinta dhalinyarada la qabto ballanqaadyo been la sameeyo aan wasaaraddu waxba aysan qabanin wasiirku ugu horeeyo annaga mar walba waxaan dhex taaganahay dhalinyaradii laakiin ciddii hawshaasna la fahmi lahayd oo la qaban lahayd ayaa naga hurdaysa sidaas daraadeed waxaan leeyahay ra'iisul wasaare madaxweyne qof dhalinyaro ah oo wasaaraddan ka bixi kara boqolkiiba 75 bulshadan waa dhalinyaro waxay u baahan tahay horumar ay u baahan tahay oo dhinac walba ah haddii nabad la helo ayaa horumarka isboortigu nabad ayuu ku dhisan yahay dawladdu wax badan ku guuleysatay garoomadii dhisaysaa deyntii qaranka dalka waa laga cafinayaa wax badan ay xukuumadda qabanaysaa laakiin arrimaha dhalinyarada waxaan aaminsanahay wasaaruhu waa diyaar mar walba u qabtaa laakiin wasiirku ka jiifaa marka anoo runtii dhowr jeer ay ahayd inaan runtii aan hortiina soo istaago runtii idiin sheego madaxdii waa u gudbiyey laakiin waxaan runtii maanta aan diyaar u ahay inaan shacabka u sheego in wasaaraddu mandatekeedu waa horumarinta isboortigu ay ka gaabisay wasiirku ka gaabiyey laakiin annaga waan diyaar u nahay marka ra'iisul wasaare waxaan uga mahadcelinaynaa inuu asagu isxilqaamay wax badan qabtay laakiin waxaan leeyahay ra'iisul wasaare in lagu amaano oo xasaanad iyo xildhibaannimo lagu amaano oo golaha laga tirsanaado boqolkiiba 75 dhalinyaradana ay yihiin dhalinyaro shaqo la'aan ah horumar isboorti u baahan marka ma codka boqolkiiba 75 ayaa dooranaysa mise qofka xildhibaanka kaliya ku codeynaya marka aniga waxaan aaminsanahay in runtii ay tahay wax qalad ah wasaaradda horumarka badan oo la sameyn kari lama sameynin marka waxaan rabaa maadaama waqtigu uu runtii isgurayo waxaan tala ku soo jeedinayaa in dhalinyarada laga fikiro boqolkiiba 75 si dalkan horumar u gaaro marka waa mahadsantiin